السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo video cusub maanta waxaa idin wadaa ice cream sida loo sameeyo qaab yar oo fudud idin tusi rabaa kusoo dhawaada channelkiini waaye asxaabta hor noola joogtay kuwa hadda cusub dhamaantiin soo dhawaada asxaabi maanta waxaan rabaa halkaan idinku tuso ice cream sida aad ugu sameysan karto gurigaada ما شاء الله تبارك الله meeshaan waxaan ku soo shubtay hal koob oo whipping cream asagaas hadda qasaaya kadibna waxa kaloon haystaa hal koob oo condensed milk oo ku soo darsani doono dib ka arki doontiin marka waa kan asxaabteyda saas u noqday markaa soo qasay xoogna uma qasaysid tartiib speed dhaxdhaxaad ku qasaysaa waa kana koob oo condensed milk ku soo darsaday ما شاء الله تبارك الله asxaabi maanta ice cream ka sameyn doono laba nooc oo ka koobnaan doona waa strawberry iyo chocolate labadaas nooc sameynaya ما شاء الله تبارك الله si yar oo fudud adoo gurigaada joogo aad ku sameysan kartid waa ice cream waa kana hadda meeshaan waxaan ku soo shubtay strawberry hadda halkan ku soo shiidanaya wax biyo aan kuma darin asoo soo shiiday waa kana korka uga soo darsanaya hadaa rabto xoog u shiidaysaa hadii kale oo arabtidna wax inuu afka ku galgal hadhow ice cream ka cunayso sidoo kale inta aad uma shiidaysid haddii aad rabto in waxba afka ku galin si fiican u shiidaysaa ما شاء الله hadda waa kana ku soo darsaday saas u walaaqaya ما شاء الله تبارك الله asxaabteyda saan hadda kan diyaar loogu yahay ki strawberry ga waaye saddexda shay oo ka kooban yahay si fiican isu dhex gelinaysaa kadib waxa ku soo shubanaynaa weel waxa guda galaya marka qaybta kale inta sameeyo oo chocolate ka ahayd ayadan intaan oo kala ka sameyn doonaa waa ka asxaabteyda halkaas aan ku soo riday bacan korka uga soo xiri doonaa sababtoo waxaa rabaa in fridge geliyo oo fridge-ku uu jiro 24 saacadood markaas afka ka xiraysaa si dabaysha ay kaaga gelin fridge markaa gelisid hadda qaybta kala guda galeena qaybta strawberry saas ku dhameeyay qayb kale oo ayadana waxaa halkan ku sameyn rabaa chocolate waa tana intii hadda oo kala ka soo sameeyay whipping cream iyo condensed milk hal koob waxaa kaloon korka uga soo daray oo brown ka saa arkaysiin iga dhigay cocoa powder waaye waan idin tusi doonaa hadda cocoa powder ka saa korka uga darsaday asaga midabkaas brown ka igu yeelay ما شاء الله تبارك الله وكاسا ما شاء الله asxaabteyda labadaas nooc maanta sameeyay asagana waxaan ku soo shuban doonaa weel kadibna afka ka xiraaya si aan fridge ugu gashto markaas saas inuu ku noqdo waaye inuu fadhaa ka noqdo ma aha wax bibiye inuu ka noqdona ma ahan ما شاء الله asagana weelkaas u soo diyaarsaday waa kana halkaan aan ku soo shubanaya sidii kii hore kale inta asagana bacafka uga soo xiranaya saas u sameysaa ما شاء الله تبارك الله kadib bacdi hadda afka uga xiranayna bacda sababta ugu xiranayna waxa waay fridge maadaama muddo dheer ku jiraayo oo 24 saacadood si uu kaaga dabayshanin iyo bacda ku xiranaysaa ما شاء الله asxaabi waa kana 24 saacadood kadib fridge aan ku soo bixiyay halkaan hadda noogu soo ridaaya ma maleysan kartid macaanka kaal iska arag waaye wakaasa fridge ku cabaar ku jiray 24 saacadood saas noogu dhagay oo ice cream noogu noqday ما شاء الله تبارك الله وجهدين أصحابتك كان إسكارك واي لعق أذو كاغا بحين وميل آدين قريقات ترتيبتها تاكو سميسة تولي بنوع عاربتid وعجعشهاي عاسميسة نيسا كان إسكارك واي معان إنه عادي معهن كفايدة يستاد كجعل آيس كريم أو مر بسوقته أو لعقتي أو بحضه ترتيبتها هذا هل هو بدنا فريدك بشنيسة هالمر تاسو مع الموضة كأوني كرتا ما شاء الله waxaa sadakor kan ugu soo darsaday waa cocoa powder wixii kale oo haysatid chocolate haday noqon lahayd wax walba korka uga soo darsan kartaa hadda laakiin aniga waxaan haystay cocoa powder kaas korka uga soo darsaday ma sha Allah qurux iyo sii dhigayba waa ku mahadsantiin asxaabta daawashadiina ka faa'iideyso wanaagsan intaas maanta kugu talagalay asxaabtaas fiidiyoga inaad like noo dhahdin ha iloobina assalaamu calaykum